بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد وثمة أسباب مهمة وثمة هل كان وحاء أسباب أرمو أما السبب مهمة لو التزمها دول لازم بها إياذا المبتلى qofka mubtaliga ah oo la imtixaanayo jiran la saacadad way saacideynaysaa fi tacjiil macaafaatihi inay soo dedejiso caafimaadkiisa biidni illaahi tacaala ilaah idinkiisa kusoo dedegto minha waxaa ka mid a alxirsu taam si taama inuu ugu dadaalo calaa ta'diyati alcibaadaat cibaadaadka inuu guto fii awqaatiha waqtiyadeedana ku guto uu la yimaado wa min ahamihaa cibaadaadka kuwa ugu muhiimsan asalaatu salaada ka mid a fii jamaacatin jamaaca lagu tukado khaasatan hadduu rag yahay wa bikhaasatin khaas ahaan salaatu lfajri salaada subaxa liqowlihi sala allahu alayh wasalam nabiga qowlkiisaana u daliila man sallaa ninkiis tukada asubxa subaxa fa huwa fii dimati illaah ilaahay ammaankiisuu ku jiraa ilaahay baa ammaan gelinaya ilaahay baa xifdinaya xadiiskaasina waa saxiix wa qowlihi iyo qowlkiisa calayhi salaatu wasalaam korkiisa naxariisiya nabadgelya ha ahaatee nebigu uu yidhi man sallaa ninkii tukada asubxa salaada subax fii jamaacatin jamaaca ku tukada fa ka'annamaa waaba isaga oo sallaa tukaday alleyla hameenkii kullahu dhammaantii marka salaadu waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka ilaahay ku xifdinayo oo ku difaacayo oo balaayo o dhan ilaahay kaga celinayo athaani midka labaad an yashraca ibtidaa'an biruqa nafsihi an yashraca waa inuu ku bilaabo ibtidaa'an marka u horeyso biraqyi nafsihi naftiisa inuu ruuxu ku tufo oo isagu iska bilaabo qof isagu isku tufi jiray oo ku caafimaaday marka yacni waxaa la rabaa inuu isagu isku tufo ruuxa laftiisu inuu kaasaa ugu fiican qof isku tufay oo ku caafimaaday cid kale muu baryin soo ma aragti inuu isku kalsoonaadana ilaahayna ku kalsoonaado isaguna isku kalsoonaadana meeshay ku jirtaa marka waa inuu naftiisa horta isagu isku tufaa fa ina ruqyata almar-i ruuxa tufidiisa linafsi naftiisa uu ku tufaa hiya iyado awlaa way ka wanaagsan tahay min ruqyati siwaahu tufidda ruux kale uu ku tufo daalika arrinkuna waxa weeye ana ruqyata hiya ruqyadu waxa weeye min jinsi ducaa ducadayba ka mid tahay wa ducaau lmari ruuxa oo u barya linafsihi naftiisa bitaxqiiqi tamaam ayaa macnaha si taama u xaqiijinaysa atawakula tala saarashada ilaahay huwa isagaana arjaa lilqubuuli qubuul ugu dhow isagaa loogu rajo dhow yahay ama loogu rajeyn og yahay lilqubuuli in laga aqbalo min ducaai gayrihi lahu ducada isaga keyrkii lahu isaga u duceeyo isaga ducada uu ducaysto baa lagaga rajo badan yahay in laga aqbalo bikhaasatin khaas ahaan fii zamani caza fiihi alruqaat almukhlisuun khaas ahaan zaman ay adkaatay dadka ruqaada wax ku tufa inay mukhlisiin yihiin qof walba lacagtuu fiirinayaa lacagtuu daf kaa siisanaya waa kaa tegaya wax yarbu waa kugu dhahaya haalitha midda saddexaad in lam yatamakan hadduusan suuragelin min ruqyati nafsihi naftiisa inuu ku tufo haddayna suuragelin liishtidaadi ku adkaanshaha wad'ati lmaradi xanuunka culayskiisa ayaaba ku daraaday caleyhi korkiisa oo amase ruqaa nafsihi naftiisa oo amase raqaa nafsiho naftiisu ku tufay huma markaa ka bacdi raqaba wuxuu jeclaastay fi listizaadati inuu siyaasato biruqyati gayrihi gayrkii tufmadiisa lahu isaga uu ku tufo inuu siyaadsado ayuu jeclaaday falyaxris ha ku dadaalo kula alxirsi dadaal oo dhan cala alistirqaa'i inuu macnaha isku tufo ladaa ruqaatin mukhlisiina dad mukhlisiina tufmadooda oo mimankaasoo xasunad caqiidatum caqiidadoodu ay wanaagsan tahay wa shaaca bayna annaasi dadka dhexdoodana ay ku fiday salaaxuhum wanaagoodu wa xusnu dikrihim iyo sheegitaankooda wanaaggiisa aada loo ammaanay walyaxdar ha ka digtoonaado kula alxadari digtoonaan kasta min alinsiyaaqi khalfa asaxara dadka suxaradaa inuu daba rooro walmushacwadiina iyo quraafiyiinta fa haadaa kaasi mimaa kii weeye culimat lagu ogaaday bidaruurati daruuro ahaan xurmatu xaaraannimadiisa
kamaa sida liyaxdara almu'minu mu'minka uga degtoonaanayo min atasahuli inuu sahlado fi tadaawi bimuxaram yacnii isku daaweeye shay xaaraana sidaasoo kale waa inuu fududaysta ka digtoonaado fa in allaha tacaala ilaahay lamaa sharaca tadaawi markuu isdaaweynta sharciyeeyey licibaadihi addoommadiisa u sharciyeeyey lam yajcal kama yeelin subxaanahu alla ceeb la-aaye shifaa'ahum caafimaadkooda fii maa xaramahu calayhim wuxuu ka xarimay kamaa qaala sala allahu calayhi wasalam sida rasuulku uu yidhi ina allaha ilaahay lam yajcal kama yeelin shifaa'akum caafimaadkiina fii xaaraamin xaaraan inaad isku daaweysaan xadiis saxiixa weeye isaguna arrinka afraad waxa weeye an tasdura inay ka soo fusho weeye alruqyatu ruqyadu almashruucatu ee mashruuca ahi caman xasunad sariiratuhu qofka sariiradiisu fiican tahay wastaqaamat ay toosnaatay dariiqatuhu dariiqadiisuna waqad dahara nafsahu naftiisa ka dahiray can ilxaraami xaaraanta wastayqana oo yaqiinsaday bianna shifaa'a caafimaadku min allaahi waxdahu ilaah xaggiisa keliya inuu ka yimaado wa annahu alla subxaanahu ceeb la-aaye huwa shaafi ka wax caafiya inuu yahay ashaafi ka wax shaafiya walmucaafi midka wax caafiya inuu yahay daalika arrinku waxa weeye ana ruqyata daalika arrinku sidaas wuxuu ku yahay ama daalika sababtu waxa weeye ana ruqyata ruqyadu kamaa taqadama saan hore usoo sheegnay hiya iyadu min jinsi ducaa'i ducaday ka mid tahay fa idaa qara'a hadduu akhriyo alraaqi qofka raaqiga ah hadduu akhriyo